farsamada iyo qorsheynta colaaduhu waa arrin ahmiyad weyn u leh dowladaha waana arrin la xidhiidha geerida iyo nolosha colaadaas oo kugu hagi karto goob ammaan ah ama dhul kharaab ah oo burburay waana mawduuc istaahila in lagu sameeyo baaritaanno iyo dabagal mana aha mid la yaraysan karo ama indhaha laga lalin karo marka ay buuxsanto saacadda 24 saacadood waxaa bilaabanaya fulinta khidadii dagaal ee lagu weerari lahaa jamhuuriyadda iiraan ugu yaraan 90 diyaaradood oo kuwa dagaalka istiraatiijiga ah oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil iyo Mareykanku ayaa weeraro la beegsan doona 11 xarumood oo ah saldhigyada quwadda nukliyeerka ee dalkaas ugu yaraan 3 saldhig oo hogaaminaya oo ku kala yaala dalka Mareykanka qaaradda Yurub iyo gudaha Israa'iil ayaa laga hagi doonaa howlgalka lagu weerari karo jamhuuriyadda Iiraan iyadoo ay si wadajir uga qayb qaadan karaan hoggaanka sare ee colaadaha istiraatiijiga ee dalka Mareykanka ee loo yaqaan STRACOM iyo hoggaaminta dhexe ee ciidamada dalka Mareykanka ee loo yaqaan CENTCOM weerarka duqeynta ee diyaaradaha Mareykanku qaadi karaan waxaa loo fulinayaa 2 marxaladood iyadoo la isku darayo raxan ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee F-15 iyo F-22 kuwaasoo duulaankooda looga dan leeyahay inay mashquuliyo ciidamada difaaca ee dalka Iiraan kadibna la qaado weerarka labaad xanta labaad ee diyaaradaha ee duulaanka labaad qaadaya waxay isugu jiraan diyaaradaha dagaalka oo casri ah iyo diyaaradaha waaweyn ee xambaara gantaalaha ridada fog kuwaasoo bartilmaameedsanaya xarumaha quwadda nukliyeerka iyo saldhigyada istiraatiijiga ee ciidamada Iiraan diyaaradahaasi oo ku qalabaysan gantaalaha kala jeexa ee daluuliya dhufaysayna ama loo kala leeyahay sidan soo socota raxan ka mid ah diyaaradaha F-15 iyo F-16 waxay ka duuli doonaan saldhigyo ku yaala dalka Israa'iil iyo markab kuwa diyaaradaha xambaara ah oo ku sugan biyaha badda Khaliijka waxaana ay tigsan doonaan hadafkooda oo ah inay duqeeyaan xarumaha kala ah saldhigga quwadda nukliyeerka ee Bunaa ee dalka Iiraan xarunta ay ku rakaban yihiin agabka lagu baaro macdanta uraniumka ee magaalada Asfahan xarunta quwadda atomikada ee Bushawar iyagoo adeegsanaya gantaalaha noocoodu yahay MBR 500 raxanta saddexaad ee duulaanka ka qayb qaadan doonta waxay isugu jiri doonaan diyaaradaha culculus ee xambaara gantaalaha ee B2 iyo B52 kuwaasoo ka kici doona saldhigga Van Raad ee ku yaala saldanadda Cumaan iyo saldhigga Diego Garcia oo ka dhisan bartamaha badweynta Hindiya waxaana loo xilsaaray inay duqeeyaan meelaha ay ka mid yihiin warshadda soo saarta biyaha culus ee magaalada Arak xarunta lagu bacrimiyo macdanta uraniumka ee ku yaala meel 80 mitir dhulka hoostiisa oo ku dhow deegaanka buuraleyda ee Fordo ee magaalada Qom iyo xarunta kale ee Natanz oo lagu keydiyo macdanta uraniumka oo ku taala meel dhulka hoostiisa ilaa 25 mitir dhammaan goobaha Iiraaniyiintu amnigooda adkeeyeen ee dhulka hoostiisa waxaa lagu duqeyn doonaa gantaalaha noocoodu yahay MOB 58 ciidanka difaaca cirka ee dalka Iiraan waxa uu xilligaa fulinayaa khidadii uu kaga hortagi lahaa weerarka lagu soo qaaday isagoo isticmaalaya diyaaradaha dagaalka saanada raadarada gantaalaha difaaca cirka ee diyaaradaha ka hortaga iyo saanada kale ee ah gantaalka dhulka laga rido ee cirka wax ka dila ciidamada difaaca cirka ee dalka Iiraan waxay isticmaalayaan awoodda saanada hubka kala duwan ee xoogga difaaca cirka iyo taatikadooda dagaalka ee u gaarka iyagoo u kala horraysiinaya sida soo socota diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Iiraan ee noocoodu yahay F4 iyo F5 iyo MiG-26 iyo weliba diyaaradaha loogu magac daray Saaciqa oo gudaha Iiraan lagu farsameeyay waxay si foolka fool uga hortagayaan diyaaradaha weerarka ah iyagoo dagaal kula gelaya hawada sare ciidamada difaaca cirka Iiraan waxa ay ku hawlgeli doonaan saanada digniinta degdega iyo agabka dagaalka elektaroonikada si ay tashwiish iyo marin habaaban ugu furan diyaaradaha iyo gantaalaha weerarka ku soo iyagoo isku dayaya inay qarxiyaan oo soo ridaan ama jiha kale isu dhaafiyaan dhibaatadiisa sidoo kale ciidamada difaaca cirka Iiraan waxay samada sare ku xidhayaan gantaalaha difaaca cirka ee ridada dhexe iyo kumanaan ka mid ah gantaalaha qaraxyada ka sameeya hawada kuwaasoo lala beegsanayo oo lagaga hortagayo diyaaradaha iyo gantaalaha soo muquuraya hawada ee ku soo wajahan dhanka dalka Iiraan gantaalka Misbaax 1 iyo Saqiir oo adeegsanaya xogaha raadarada ayaa hadaf kasta tigsan doona batalyanka afraad ee ciidamada difaaca cirka ee dalka Iiraan ayaa ka qayb qaadan doona howlgalka soconaya iyagoo adeegsanaya gantaaladooda difaaca ee dhulka laga rido cirkana wax ka dila iyagoo beegsanaya dhammaan weerarada soo socda ee duulaya hawada hoose ta dhexe iyo samada saraba xilli diyaaradaha F-16 ee duulimaadada hoose ku duulaya lagaga hortagi doono gantaalaha kala ah kuwa garabka laga tuuray ee Misaaq 2 gantaalka baytariyada ka dulbooda ee Door M1
iyo gantaalka casriga ah ee shibaabu saaqib 2 saacadood oo howlgala oo duulimaadada iyo duulaamulaqaad iyo hoggaanka taliska dhexe ee wadajirka ee Israa'iil iyo Maraykanku waxay sameynayaan xog ururin ay ku muujinayaan mowqifka la taagan yahay si loo helo natiijooyinka hordhac ee ka soo baxay weerarkii koowaad ee la qaaday iyadoo la shaandhayn doono wararka ay soo ururiyeen xarumaha dayax gacmeedada diyaaradaha aan duuliyaashu wadin iyo howlgallada dhinaca sirdoonka ee ciidamada caadiga